xog cusub maantay ama caaway waxaan ka hadli doonaa xog cusub asxaabaheena oo ka hadlaysa sida dheemanta loo helo. Dheemanta mar walbaba dadka Soomaaliyeed waxay raadiyaan dheemantana sidoo kale waxay u raadiyaan si tiro badan, sidoo kalena ma yaqaanaan xaqiiqooyinka dhabta ah ee dheemanta ka dambeeya. Dheemanta sida aad ogtihiin waa dhagax qaali ah. dhagaxa dheemantana ma ahan dhagax si dhow qodistiisa loogu guuleysan karo, mana ahan dhagax si badan loo heli karo. qeexid baan ku darayaa dheemanta ka hadlaysa. dheemanta horta dhagax ahaan waxay ku beerantaa dhul aad u qoto dheer. haddii aan idiin sheegana qosol baad u baqtii kartaan dhulka ay ku beeranto. qiyaastii 140 kilomitir oo dhulka hoostiisa ama 140,000 oo mitir oo dhulka hoostiisa ah. sidoo kale waxay ku beermi kartaa ilaa 190,000 oo dhulka hoostiisa oo mitir ama 190 kilomitir oo dhulka hoos loo qodayo. sidoo kale dheemanku cimilada ay ku nooshahay cimilo aadmigu u adkeysan kara maahan. heerkulkeeda waa cimilo aad u kulul oo aad u adag, caqabadaheeduna aad u badan yihiin. qof kasta oo dheeman raadiyaana halkaas ciyaar kuma geli karo. inta badan dadka macdan qodayaasha ee dheemanta ka shaqaysta waxaa jira qaacidooyin ay dheemanta u raadiyaan. qaacidooyinkaasna waxay noqonayaan xeerar iyo tilmaamo macdantan dheemantu ay leedahay oo dhulka aasaartiisa sare laga dareemo ayay inta badan dabagalaan. aasaartaasayna inteeda dhow wixii ay keentay aasaartaasi ayay ka shaqaystaan. sida halkan idinka muuqataba tuubo ayaa halkan ka muuqata dhulka hoostiisa ka timid. hoosta hoosena waa heerkulkii. tuubadani qiyaastii waa 300 oo kilomitir oo dhulka hoostiisa ah. qiyaastii ilaa iyo wax u dhow kulaylka lada noocaas baa ka dhaca. markii la qiimeynayo kulaylka dhulka markii la joogo 140 kilomitir ilaa iyo wixii ka sii badan ilaa 190 ilaa 200 ilaa 300 waxaa ka dhaca. waxaa horta ku abuurma heerkullo aad u badan ayaa ka dhaca. heerkulladaasna markay aadka u bataan waxaa ka samaysma dheemanku markuu heerkulka ka samaysmo sida caadiga dadku heerkulkaas uguma tagaan dheemanka. dadku waxay sameeyaan heerkulkaasi dheemankii kusoo samaysmay oo aadka u qotada dheeraa oo culays badan iyo afisjiidad badan soo maray. waxaa kulaylkaasi markuu sii jiitamay sidoo kale uu abuuraa qarax loo yaqaano Kimberlane-kaasi. marka qaraxaasi Kimberlane-kaasi wuxuu sameeyaa waa qarax aad u xoog badan oo foolkaanihiisu aad u sareeyo. dhulka hoose ilaa 300 oo kilomitir oo dhulka hoose ama 300,000 oo mitir ayuu ka soo bilowdaa. Kimberlane-kaasi wuxuu sameeyaa siduu habba qarax u noqonayo marka dambe naqas ahaan hal mar u soo boodaa. kadibna waxaa halkaa ka soo raaca dheemankuna halkaa markuu Kimberlane ka soo qaado wuxuu soo maraa Kimberlane-ku barnaamij dalool ah oo Kimberlane Pipe loo yaqaano. Kimberlane Pipe markii la qeexayo waa pipe, waa af Soomaaliga waxaa loogu yaqaanaa tuubo. marka qaraxaas adag oo sida hawada u dhaca wuxuu sameeyaa meel qaraxaasi uu soo maro oo hawo ahaan uu soo maro oo tuubo ah. tuubadaasana waxaa loo yaqaanaa Kimberlane Pipe. tuubadu marka waa tuubo dhulka ka dhex samaysan. waa qaab tuubadii dhulka u samaysmayaa, wuu dalooshamayaa.
waana xawaaro dheer buuna kusoo qodmayaa. Afku marka banaanka keensanayaa design tuubo u eg isagoo ah. marka Kimberlin pipe-ku waa macno noocaas ah. Kimberlin pipe-kaas marka dhulku wuxuu ka soo qaadayaa dheemankii 300 kilomitir ama 140 kilomitir ama inta u dhaxaysa. dheemantii marka Kimberlin-kaas soo qaaday ayaa waxay noqonaysaa maado ayadoo dhagax jajab ah oo dheeman ah ay soo baxaysaa. qayba in bay ku soo haraysaa hawadaas, qaybta ugu sarreysa dhulka korkiisa imaanaysa. halka markii la taagan yahay ayaa qaraxii si toos ah u qarxaya Kimberlin-kii, oo qaraxu si fiican markuu banaan iyo hawo ku soo dhaco ayuu qarxaya. kadibna halka ama volcano muuqdo oo qaraxa toos u noqonaya, ama wuxuu noqonayaa system chemical oo hawo ah oo hawada dhulka ku biira. systemkaasina ama geedaha inuu qallajiyo ama xoolaha iyo dadka iyo xanuun yar ku rido buu kalifaya. taasi marka ay sidaa u dhacdo sidaas ku neefsaday Kimberlin-kii. Kimberlin pipe-kina waa dhulka dushiisa laga dareemi doonaa. sidaa marka shirkadaha macdanta qoda ayaa Kimberlin pipe-kaas iyo khuburada waaweyn oo macdanta ayaa arkaya ama cid kamid loo sheegaya. kadibna marka sahmin bay ku sameeyaan. sahminta Kimberlin pipe-ka lagu sameeyay ayaa waxa lagu ogaadaa daraasada dheemanta Kimberlin pipe-ka soo raacday iyo qiyaastii 100% inta uu ka soo tagi karo. markaas kadib waxa loo aqoonsadaa Kimberlin pipe-kaas inuu sido macdan badan oo dheemana. hadday soo baxdo inuu sido macdan badan oo dheemana, waxa la sameeyaa dheemanta waa laga shaqaystaa oo heer business ay tahay. kambaniyo iyo shirkadaha yimaada, shirkadaha iyo kambaniyadaasana dheemanta qoda. haddii loo arko inuu dheemantaani wax yar tahay oo aan heer ganacsi geli karin, Kimberlin pipe-kaanina uusan wax badan soo qaadin, sidaasna waxaa lagu laalaa ganacsigii dheemanta ee laga fakarayay. daraasadii injineeradii geologists-ka ahaa ee khuburada ahaana way isaga tagaan. shirkadna meesha lama keeno, kharash weyn lama geliyo. Kimberlin pipe marka qaabeeshkaas uu shaqeeyaa. dheemantu dhulka intaas ku beerantaa. marka haddii dadku ay yiraahdaan dheeman baan qodaynaa ama dheeman baa iska helay, dheemantu maahan wax meel walba iska yaala, si fududna mar walba loo heli karo. waa inaan intaas la ogaana. waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka subscribe garaystaan, like garaystaan, share garaystaan, sidoo kale qaybtii diiwaangelinta ardayda iyo baarista macluumaadka la socota.